بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعشركي سداد وعشركي أفري اللباتانات كتابكي منهاج كاها عشركي هore wuxuu ku dhex joogay salaatul janaazada casharkeena hadda waxaan ka bilaabaynaa janaazadii dhexdeeda yaa ku haboon in salaada meydka lagu tukanayo ay imaam ka noqdaan ayaan ka bilaabaynaa farcun hada mufaracun farcan waxaa laga farcaday wixii ka horeeya laga farcaday fi bayaan alawlaa bisalaati cala almayiti salaada meydka lagu tukanayo cidda ku haboona la cadaynaya aljadiidu madhabka imaamu shaafici kiisa cusuba jadiidka ana alwaliya ruuxa weliga ahaa ayaa awlaa haboon biimaamatihaa salaatuljanaazada imaamnimadkeeda ku haboon min alwaali qofkii mas-uulka ahaayoo dowladda ka socday oo dowliga ah taasaa ka haboon weliga ka haboon markaan fa yuqadamu waa la hormariyaa alabu aabihi meydka aabihiisa ugu horeynaya ama ciddii u wakiishoy huma aljaddu awowgiyaa horeeya oo ku xiga aaba hadii la waayo weyn calaa haba sareeya huma markaa bacdigeed alibnu wiilkia ku xiga meydku dhalay huma bnuhu meydka wiilkiisiyaa ku xiga weyn safala haba hoosee huma alakhu meydka walaalkiisa ku xiga oo aan ku hooyo ahayn yacni kii ku hooyada kaliya aan ahayn waladharu sida xooga badan taqdiimu lakhi walaalkii oo liabaweyni labada aaba u sugnaaday in la hormarinayo wey calaa alakhi walaalkia laga hormarina oo liabin halka aaba u sugnaado oo walaalka ku hooyiya aabada ah oo shaqiiq ah ayaa wuxuu ka horeeya walaalka ku aaba kaliya huma markaa bacdigeed ibnul akhi walaalkii wiilkiisii weye oo liabaweyn u sugnaaday labadii aabe oo waxa weeye adeerka meydka u yahay ama eedo wuxuu yahayba huma liakhin walaalkii wiilkiisii oo ku aaba kaliya ahaa hawe huma markaa bacdigeed alcasabatu baqiyatulcasabati dadkii kaleo casabada ahaa intoodii soo hartay weye calaa tartiibi lirthi dhaxalkii tartiibkiisa xaalay yihiin oo adeeryaashiiya wey markaas huma markaa bacdigeed dhawul arxaami qaraabada kuwa saaxiibka ahaa weye oo maaragtay walaalkii ku hooyada ahaa iyo dadkaas wey marka dadkii kaleo qaraabada guud ahaa alaqrab ayaa la hormariyaa mathalan awogii hooyo dhala iyo walaalkii ku hooyada kaliya ahaa iyo abtigii iyo adeerkii ku aaba ku hooyo kaliya ahaa iyo kuwaas weye walow ijtamacaa haddii ay kulmaan laba qof oo isku martaba ah mathalan ba laba walaal oo meydka ku hooyiya aaba aha yimid waa isku qabsadeen fii darajatin darajo martaba ayay ku kulmeen fal asanu kan da-da weyn alcadlu caadilka ah ayaa awlaa fiican cala annasi sida xooga badan oo naska oo kan da-da weyna ka horeynaya kii oo fiqhiga badnaa caadilka aan aha kan da-da weyna caadilka maxaa yeele markaa ducada la rabaa ducaduna da-weynida u dhowda wayuqadamu waa la hormariyaa alxuru riixu xorka ahaa albaciidu oo fogaa cala alcabdi adoonkii alqariibi dhawaa laga hormariya hadii meydka oo yani xilliga adoonsiga uu jiro haddii qof qaraabaha fog oo xora uu jiro iyo qof qaraabaha dhowo maaragtay adoona kan xorkaa la hormari jira wayaqif waa istaagaa meydkii ruuxii tukanayay cinda ra'si rajuli ninka madaxiisa agtiisa meydka marka lagu tukanayo ninka madaxa agtiisa laga istaagaa iyo wacajuzihaa gabadhii qaarkeeda dambe agtiisa ayaa laga istaagaa sinaheedii labada sanood agtooda watajuuzu waa ay banaan tahay salaatu janaazadii watajuuzu waxaa banaan cala aljanaa-isi meydad badan waxaa ku banaan janaazooyin badan salaatun hal salaad oo waxa weeye dhowr meydaa la keenay hal salaada lagu wada tukan karaa haddii ay ku raali noqdaan dadka oo ka mas-uulka ah ducadana waa lagu camimo jamac ayaa laga dhigaa laakiin waxaa fadli badan mid kastaba salaad gooni in lagu tukada saasaa si fadli badan wataxrumu waxaa xaaraama salaatu ljanaazadi cala alkaafiri gaalay ka xaaraam tahay gaal laguma tukan karo walaa yajibu mana waajibo qasluhu in la mayro oo gaalka in la mayrona waajib maaha sidiisaa lagu asi karaa walow saxu sida saxiixa takfiinu dhimiyi gaalka dhimiga ahaa oo in la karfino waa waajib iyo wadafnihi in la aaso oo dhimigii in la aasiya in la karfinaahay
waa waajib maadaama islaamka uu ballan kula jiray. waaye waxa weeye saasuu noqonaya. walow wujida haddii la helo cudwu muslimin ruux muslima xibinkiis kaasoo culima la ogaada mowtuhu inuu dhintay. qof muslimahoo la ogaaday inuu dhintay ayaa xibin ka mid a gacantiisii oo kale ayaa la hela. sulliya waa la tukadaa calayhi, xibinkaasa lagu tukadaa markii la mayra kabacdi. waayahay waana marana waa lagu asturayaa. salaadii janaazadana waxaa loo niyeysanaa meydkii oo dhanaa loo niyeysanaya. waaye fil adhari sida waa lagu tukadaa ama sallaa ruuxa oo meesha jooga uu ku tukadaa caleyhi meydka korkiisa xibinkaas. wasiqtu cunugii dhiciska ahaa oo aan bila dhamaysana isaga oo dhintay in istahalla haddii uu qayliyo aw bakaa haddii uu ooyo ka kabiirin ruux weynu la mid yahay waana la isku raacsan yahay. dhiciska hadduu qayliyo ama uu ooyo kabacdina uu dhinto sidii ruux weyna loo aasaya axkaamtii oo dhan. wa ilaa haddii uusan qaylin uusana ooyin uuna dhinto fain daharad haddii ay soo baxday amaaratul xayaati nolol astaanteed iyo calaamadeed wadalika ka ikhtilaajin waaba dibaaxin waa dibaaxiye. sulliya waa la tukadaa calayhi siqdigii dhiciskii fil adhari hadduu dhaqdhaqaaq feerahaya sidii wax nool oo kale u dibaaxiyo kabacdi naftu ka baxdo waaye waa lagu tukanayaa. waana in la aasana waa waajib oo la mayro waa lagu tukanaya. wain lam tadhar haddii aysa soo bixin wax oo amaaratul xayaat nolol astaanteed ma muuqan. walam yabluq mana gaarin cunugii dhiciska ahaa 4 ashhurin 4 biloodna ma gaarin lam yusalla calayhi laguma tukado. 4 bilood hadduusa gaarin abuur bini aadamna uusa kasoo daahirin laguma tukado. wakadaa waxaa la mida in balaqahaa 4 bilood haddii uu gaaro ayaa la mida. 4 bilood waaba gaaraba ay dahara khalquhu walam tadhar amaaratu lxayaati laa yusalla caleyh. haddii abuur bini aadam uu kasoo daahiro abuurkiis waaba soo daahire calaamad laakiin nolol kamaanan arkin oo ma dhaqdhaqaaqin laguma tukanayo. markaas salaad ma jirto, salaatuljanaaza laguma sa laakiin maxaa la sameynaa in la karfano waa waajib lana aaso. in la dhaqoo la karfano lana aasaa waajiba. walaa yugasalu lama mayro ashahiidu ruuxii shahiiday lama mayro. shahiid lama mayro. shahiid waa kii haddaba. walaa yusallaa calayhi lagumana tukado shahiidkii waa xaaraam in la mayro laguna tukado. haddaba waa kee shahiid. wahuwa shahiidkii man waa ruux maata dhintay fii qitaali lkufaari gaalada dagaalkooda ku dhintay bisababihi dagaalkii sababkiisa ayuuna ku dhinto. gaaladii xarbiga ahayd iyo murtadiintii ayuu ku dhintay bisabab alqitaal dagaalka sababkiisa. hadduu rabo hubkiisa ha kusoo laabto ama gaal xabsi ha ku dilo ama maaragtay goobtii dagaalka soo meyda laga hele ee aan lana ogaan sabab ku dhintaye mar hadduu dagaalkiiba ku dhex dhintay waa bas. fa in maata haddii uu dhinto bacda infisaalihi dagaalkii marka uu go-ay kabacdi bacda inqidaaihi dheh bacda inqidaaihi dagaalku markuu go-ay kabacdi uu dhintay aw fii qitaali lbugaati dadkii oo maaragtay fallaagadii oo dowladda kasoo horjeeda islaamka dagaalkoodu ku dhintay dadkii kaleoo muslimiinta ahaa laakiin fallaagada dagaalkooda ku dhintay fakayru shahiidin ruuxaasi shahiid maahan fil adhari sida xooga badan oo waxa weeye kaas waa sida caadiga ah loo asturaya kaas. wakadaa waxaa lamida fi lqitaali dagaalkii gaaladii islaamka dhexdooda hadduu ku dhinto laakiin laa bisababihi dagaalkii sababkiisa kuma dhiman cala almadhabi sida xooga badan oo qof muslimahaba dilayba ama waaba wadnahaba iska istaagayba shahiid maahan kaas. walow istashhada haddii uu shahiidooba junubun ruux janaabo qabaa shahiidoobay fala saxu sida saxiixa anahu ruuxu junubka ahaa laa yugasalu lama mayro. oo waxa weeye qaacido fiqiga ahaba cadaynayso muqtadi iyo maanic hadday kulmaan kee la hormarinayaa maanica la hormarina. waaye marka janaabaduna waa muqtadi oo qubaysay keenaysaa shahaadaduna waa maanic. marka qofkii shahiidka ah haddii uu qof junuba shahiido lama mayrayo. wa anahu shaaniya tuzaalo waxaa la gooyaa najaasatuhu shahiidkii najaasa hadday ku taala jirkiisa hayra dami ila dama dhiigga maahane dhiigga maahane wixii kale waa la goynaya laakiin dhiigga lagama goyna dhiigga shahaadada.
waayahay wayukafanu waa la karfinaa ruuxii shahiidkaa waa la karfinaa karfanaa la geliyaa fii thiyaabihi dharkiisa lagu karfanaa almuladakati la dharoobay bidami dhiiggii shahaada lagu dharoobay waana la bedeli karaa dharkaas fain lam yakun haduusa ahayn thawbuhu shahiidka maradiisu saabiqan mid ku filan oo asturi kara mid kala gaari kara ay saatiran lijamiici badanihi jirkiisoo dhan mid asturi kara haduusa ahayn tumima waa la dhamaystiraa waa la taam yeelaa wujuuban waa waajib markaas in loo dhamaystiro oo lawada aasa kulligiis yacni lawada asturo mara karfin kala gaarta lagu buuxiyo hadda waxaan gelaynaa aaskiyaan gelaynaa haddaba faslun fi dafni lmayiti ruuxay dhinta aaskiisaan ka hadlaynaa aqalu lqabri qabri waxaa ugu yar xufratun qodis taasoo tamnacu diideysa oo reebaysa alraa'ixata urkii meydka urkiisa qarinaysa markii la aasa ka bacdi wasabuca dugaagiina diideyso dugaagii ka celinaysa inuu meydka fago iyo inuu cuno marka in dhulka la iska dhiga kaliya kuma filla god yar iyo in god la geliyana kuma filla meel ama meel la iska dhigo lagu dul dhiso maxaa yeele xufro ma ahan waxyaalahaas oo dhan kuma filnaa wayundab waxaa la suneeyaa an yuwasaca qabrigii in la ballaariyo la waasiciyo waayahay oo wayucamaqa la mooleeyo ballarkiisa in la ballaariyo oo aan lagu dhejin meydka wayucamaqa lana mooleeyo oo hoos loo dheereeyo qadra qaamatin joog qadarkiis hoos loo dheereeyo wabastatin iyo farafidsi oo qof macnaha dheer macnaha qof dhexdhexaadihi godku inta istaago uu gacnaha kor u taagto intaas god la eg in laga dhiga ayaa sunna ah sidaasaa la sameeya waayahay walaxdu haddaba godka in dhexda laga jeexo oo la sameeyo shaqi iyo iil oo dhinac laga qodayaa fiican uu noo kala sheega taa sheega walaxdu iilkiya afdalu fiican min ashaqi dhex jeexi in iil dhinac loo qodo markii godka la dhamaystiray in iil loo sameeyo ka fiican dhexda laga jeexo goorma in salubat ilardu dhulku haddii uu adag yahay haddii ardadu ay adag tahay in iil la sameeya fiican haddii aysa adkeyn oo jilicsan tahayna dhexda in laga jeexo godka dhex jeexaa fiican haddii kale iilka wuu ku dumaa wayudacu waa la dhigaa ra'suhu meydka madaxiisii cinda rijli lqabri qabriga lugtiisa agtiisa oo waxa weye meydka marka la keeno ee la rabo qabriga in la dhigo meydka waxaa lasoo dhigayaa oo naxashka la dhigayaa meesha meydka lugihiisa ku aadanaa lahayd ayaa lasoo dhigaya soo nacash ku jira kabacdina wayusallu waa la siibaa meydkii min qibali ra'sihi madaxiisa xaggiisa laga soo siibaa oo xagga madaxa laga soo siibaa kow birifqin si oo turid ah loo siibaa wayudkhiluhu meydka waxaa geliya alqabra qabrigii alrijaalu rag bisa gelinaya qabriga waxaa dhigaya rag maadaama xoog loo baahan yahay hadduu rabo meydku gabar ha ahaado wa awlaahum raggana waxaa ugu mudan inay qabriga dhigaan alaxaqu kii ugu mudnaa bisalaati salaada kii ugu mudnaa oo aabihiiyo kale kaas imaam nawowi masalo ka soo reeb wuxuu yihi qultu waxaan leeyahay yidhi ilaa an takuuna inay tahay maahana qofka dhinta imra'atan haweeney musawajatan la qabo oo haddii gabar la qaba ay tahay fa awlaahum qofka ugu mudan inuu iil ka dhigo azawju ninkii weeye wallaahu aclam ilaahay og sida xaq toosan u yidhi oo marka waa laga soo reebayaa haddii ay tahay gabar la qabo ninkeeda ayaa fiican inuu iilka dhigo wayakuunuuna waxay noqdaan dadka iilka dhigayaahi witran tirsi isdheer fiican saddex iyo kale inay noqdaan fiican wayudacu waa la dhigaa meydkii fi laxdi iilka calaa yamiinihi midigtiisa ayaa loo dhigaa in dhinac midig loo dhigo waa sunno kow lilqiblati wayuwajahu waana la jeediyaa meydkii lilqiblati qiblada ayaa loo jeediyaa waa waajib taas meydka qiblada inuu u jeedo waa waajib laakiin dhinaca loo dhigaya inuu dhinac midigtaan yaha fiican wayusnadu waa la tiiriyaa wajhuhu meydka wejigiisa waayah waa la tiiriyaa ilaa jidaarihi qabriga derbigiisa lagu tiiriyaa oo waxa weeye oo loo dhoweynayo wakadaa rijlaahu qabriga waayahay inta kale wayujaafa baaqi badanihi fayakuunu kal qawsi kulu dalika nadba sida qaansadii macnaha lugihiisana lagu dhaweynaa wejigiisana lagu dhaweynaa waayaha wadahruhu dhabarkiisana waa la tiiriyaa bilabinatin
burciid ama bulukeet yani ciidda oo la kuuskuusay oo ciiddaas la qooyo adag ayaa dhabarka laga gelinaya iyo wanaxwihi wixii lamida oo ciiddii wax adagoo waxaa la rabaa meydku hadduu dibiro uusan rogman ayaa laga rabaa. wayusadu waa la awdaa fatxu laxdi iilka meeshiisii fureed bilabinin buluketi iyo dhoobo dhooba lagu awdaa. wayaxhu waa uu hoobiyaa man danaa dadkii u dhowaaday waa ay ku hoobiyeen qabriga dadkii u dhowaad 3 xathayaatin 3 hoobin 3 xathayaati turaabin ciiddii hoobinyaalkeeda oo 3 ayay ku hoobiyeen. dadka u dhowaa la rabaa markaas dadka u dhoway sunna u tahay. uma markaa bacdigeed yuhaalu waa la shubaa ciiddii bilmasaaxi kawaawidii iyo badeeladii ayaa lagula shubaa. wayurfacu waa la koryeelaa alqabru qabrigiina shibran taaka ayaa la koryeelaa faqad oo kaliya oo qabrigii si loo arko taaka ayaa dhulka laga koryeelaa. falaa yuzaadu calaa turaabi alqabri ciidda qabrigaana ku filan aan lagu koryeelo. wa rafcuhu fowqa shibri makruuhun in taaka ka badan laga sii koryeelana waa karaahiyo. waaye waa ka tagna wuxuu yihi walaa yudfanu lama aaso 2 labo fii qabrin hal qabri laguma wada aaso 2 qof qabri keligiis laguma aaso ilaa lidaruuratin dhibaata inay wacata maahane daruura inay keento maahane oo daruurada waxaa ka mid noqon kara meydadkii fara badan dhulkiina u yaryahay. fayuqadamu waa la hormariyaa markaas afdaluhumaa labada qofkoodii fadli badan oo cibaadada kuwii ku fiicnaa ayaa la hormarinayaa oo xagga qiblada la xijinayaa. laakiin haddii ay farac iyo asal isu yihiin waalid iyo ilmo lagama hormaro waalidka. waaye wuxuu yihi markaas kii fadliga badnaa cibaadada ku fiicnaa annaga aragtideena kaasa la hormarinaya. walaa yujlasu lama fariisto cala alqabri qabriga dushiisa lama fariisto qabriga laguma dul fariisto lama ogolo qabriga in la kor fariisto yani korkiisa la iskumana tiiriyo. walaa yuuطacu qabrigiina laguma istaago waa karahiyo in qabriga lagu dul istaago. walaa yukrahu lmashyu bayna alqubuur lakin qubuurta in la dhex socdo dhib male mar haddaad qabriga ku istaageen. wayaqrubu waxaa u dhawaada wayaqrubu wuu dhowaadaa zaa'iruhu qabriga kii booqanayay waa uu dhowaadaa minhu meydkii u dhowaadaa ka qurbihi zaa'irka dhawaashihiisoo kale u dhowaadaa mithla qurbihi dhawaashihiisoo kale minhu meydka uu u dhowaanaya xayi xaaliyo kii nool. haddaa qabriga soo booqatid oo qofkii meydka qabriga soo ziyaaratid waxaa u dhowaanaysaa hoos sunno ah inaa meydka u jirsatid markii qofkaan noolaa intii aa u jirsa jirta. kasoo qaad hooyo kale hadduu ahaayo kale waa u dhowaanaysaa qofkii kale oo caadigaha waa ka fogaanaysaa sidaas oo kale. waa yahay waa ka tagna. watacziyatu tacziyadii sunnatun sunno weeye qabla dafnihi meydka inta aan la aasin oo marka meydka intaan la aasin ayaa in loo dardaarmo loo tacziyeyo dadkii laga dhintay ay fiican tahay oo samir loo dardaarmo looga diga argagaxi meydkana loo duceeyo. waayah wa bacdahu bacda dafni aaska ka bacdina waa sunna tacziyadii 3 ayaamin 3 maalmooday sunno tahay 3 maalmooday tacziyada in lasii wado sunnata oo loosii tacziyeyo ilaa 3 maalmood in loosii tacziyeyo sunnata. waa qofkii oo joogay laakiin qofkii soo galayna oo maqnaana markuu yimaado loo tacziyenaya. laakiin 3 maalmood ka bacdi haddaad tacziyadii kusii wadid qofkii inaa xusiisisid oo dhibaatadii imaanaysa. wayucazaa waa la tacziyeeyaa almuslimu qofkii muslimka ahaa waa loo tacziyeeyaa bilmuslimi bimowti lmuslimi muslim dhimashadiis ayaa looga tacziyeeyaa. see loogu tacziyana marka maxaa laleeyahay acdama allaahu wayuqaalu lahu waxaana loo yidhaha acdama allaahu allaha weynayo ajraka adiga ajarkaaga wa axsana allaha hagaajiye cazaa'aka samirkaaga wagafara allaha u dhaafa limayitika meydkaaga. u fiirso adiga ajarkaaga allaha weyneeyo samirkaagana allaha hagaajiyo meydkaagana allaha u dhaafo. muslim haddii loo tacziyeynayo muslim kale looga tacziyeynayo saasa loogu tacziyeya oo qofka dhintan uu muslim yahay kan loo tacziyeyna uu muslim yahay oo laga dhinto. wabilkaafiri gaal haddii looga tacziyeynayo qof muslina
loo tacsiyeyna waxaana dhintay qof qaraabadiisa oo gaal ah walaalkiisaba dhinto ka soo qad maxaa la leeyahay muslinkii acdama allahu allaha weyneeyo ajraka ajarkaaga waa lagaa dhinta soo maaha ajar allah ku siiyo wasabaraka samirna allaha ku siiyo la leeyahay allah ku samirsi bis intaas la leeyahay wa akhlafa calayka allah kuu bedela la leeyahay والكافر قالنا ولو تعزية ويعزى الكافر قالك ولو تعزية بالمسلم هدي بموت المسلم يلو تعزية قف قاله أيا وحابة كد انت قف قرابة دي ساهو مسلم ولا لكي سو كلا انت مسلم معالا ليه غفر الله إلهي هو دافو لميتك أدي ميتك الله هو دافو وأحسن الله هجاجي عزاءك سمركاga سمركاga الله هجاجيو يعني مركا أساق أجر لو قدو عين مايو لكن ميت كان الله ودافع ما دام ميتك مسلم أدينا سمركاga الله هجاجيو هدي حرب أما مرتديها إن لو تعزية وكراهيو إلا أن رجية إسلامه فهي مستحبة هدي إسلامنimad kiisa raja laga qabo waa sunna markaas in loo tacziyeeyo si oo loogu soo waa haduu xarbi yahay si diinta loogu soo dabaalo haddii uu yahay gaal kan laga dhintay kan dhintana uu gaal yahay waxaa loogu tacziyeeyaa sabaraka allah samir ha ku siiyo bis loogu tacziyeynaa waaye aduu cibaarooyin kalena waa jiraan intaas kusoo gaabsanana wayaxrumu wuxuu yiri wayajuusu waxaa bannaan albukaau ooyis calayhi meydka korkiisa lagu dul ooyo qabla almowti intuusa dhimano qofku markii naftu kasii baxayso ooyintu waa bannaan tahay wa bacdahu dhimashada bacdigeed in la ooyana waa bannaan tahay oo qofka haddii uu isceli waayo ooyo dhib male walow bacda dafna xataa markuu dhinta ka bacda haato laakiin waa laga fiican yahay haddii ay tahay laakiin argagax iyo inuusa qofka u hoggaansamin ilaahay xukunkiisa taas waa xaaraam weeye waa haddii uusa ka qaalib noqon haddii ooyintu ka qaalib noqoto isceli waayo waa gooni maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa kii uu ooyey marka wiilkiisa dhintoo lahaa waxa weeye ishi waa ilimeynaysaa qalbigoo murgayaa ina alcayna tadmac walqalbu yaxzan waina in sha allah yani nabigu markaas uu dhahay calayhi salaatu wasalaam ishi way ilmeynaysaa qalbigina uu murgayaa waxaan ilaahay ka raalli ahayna kuma qowleyno aw kama qala sal alay wasalam wayaxrum waxaa xaaraama annadbu baroor diiq baroor ayaa xaaraama baroor ayaa xaaraama bitacdiidi shamaa'ilihi meydka ammaanyaalkiisa oo la tiriyo lagu baroorto alla saasuu ah alla saasuu ah alla saasuu ah nadbigaas ammaantaas iyo baroortaas lama ogola lama ogola walow maca cadami lbukaa xataa qayla ayaysan jirin wanawxu qayla ayaa xaaraama iyo waljazacu argagax bidarbi sadrihi xabadkiisa garaaciisa ruuxu uu ku argagaxo iyo wanaxwi wixii lamid ah oo dharka iska jeexjeexo qayla dhaan uu la dhaco taas lama ogola laysa mina man daraba alkhuduud washaqa aljuyuub wadacwa bidacwa aljaahiliya oo kama qala sal alay wasalam oo nabigu lahaa annaga nagama mid ahaan qofka dhabanada garaaca dharka jeexjeexa jaahiliyada hadaladoodiina ku dhawaaqa dhabarkaygu ahaa saanu ahaa kaasoo dhan lama ogola waaye qultu waxaan leeyahay imanaw masaa'il halkan qultudan waa ziyaado masaa'il marka manhuuraad oo dheeraada oo aan baab gooni quseyn oo baababka dhan ku faafsan ayuu halkan imanaw looga taxaya qultu waxaan inuu yiri imanaw hadaahay hadihi tani masaa'il waa masaa'il manhuuratun la firdhiyay oo yacni awal qayb oo maaragtay dhaqitaankii qayb karfantii qayb oo aaskii qayb oo salaadii qaybaan kala lahayn waxaan ka hadlayn hadda waa masaa'il firdhisa yubaadaru waa loo degdegaa biqadaa'i dayni lmayiti ruuxii dhintay daynkiisa oo la gudo ayaa loo degdegaa lama dibdhigo daynta horaa laga gudaa qabla alishtiqaali bitajhiizihi inta aan laba diyaarin wawasiyatihi dardaarankiisii watanfiidi wasiyatihi dardaarankiisii oo la fuliyo aloo degdegaa maydkana waxaa laga diyaarinaya qarashkiisa hantida uu ka tegay dadka maanta dadkii oo hanti badan ka tegay alale waa xoolo agoon markaasaa dadkii kala dayn lagu qoraya haddii dayn qofka lagu leeyahay taas lama ogolaa
waxa weeye yani taas waa dhib wey dadka kale dhib loo geysana xoolaha agoonta wixii markii waajibaadkii kale alxuquuq almutacaliqatu bicayni tarikati markii la fuliyo kabacdi wixii soo ara agoontu leeyihiin dhaxala wayukrahu waxaa la kahdaa tamani lmowti dhimasho in la tamaniyo lidurin dhib dartiisna loo tamaniyo dhibkaasoo nazala ku degay bihi ruuxi qofka musiibo dhibaata hadday qabsato oo maaragtay xagga nolosha ah ciriiri ku jira ama maaragtay jirkiisa inuu yidha ilaah nafta la iga qad lama ogola laa lifitnati diinin diintii fitnadeeda hadduu u baqo maya laa in tamanaa lifitnati diinin diintiisa oo uu fitno uga baqa kaliya markaasaa maaragtay oo waqtigii zamaanu ka baqay ilaahay inta noloshu khayr ii tahay uu ku ducaysanay inta ay dhimashadu khayr ita ducadii in noole inta khayr ii tahay nolosha waayahay wuxuu yihi marka haddii laakiin fitno uu ka baqo wuu ku ducaysan karaa wayusan waxaa la suneeyaa atadaawi isdaaweyn oo qofku inuu isdaaweeyo ama qofka xanuunsanaa la daaweeyo waa sunno wayukrahu waxaa la kahdaa ikraahuhu meydki in la qasbo mariidki dhe ikraahulmaridi qofka xanuunsanaa in la qasbo calayhi cala dawaa'i daawada in lagu qasbo ama cala tadaawi waa laga fiican yahay iyo cuntada in lagu qasbo waa laga fiican yahay wayajuuzu waxaa banaan liahli lmayiti qofka dhintay dadkiisa waxaa u banaan iyo wanaxwihim ayaga dad meydka ehelkiisa dadkii lamidkaa saaxiibadii o kale waxaa u banaan taqbiilu wajhihi wejigiisa meydka wejigiisa inay dhunkoodaan hadduu qof wanaagsan yahay lakiin hadduu qof faasiqa yahay oo kale wejigiisa la dhunkoomaayo walaa ba'sa dhib male biliclaami ogeysiin dhib male bimowtihi meydka dhimashadiisa la ogeysiiyo lisalaati salaadii darteed loo ogeysiiyo iyo wagayrihaa salaad keyrkeedba oo haddii la rabo in maaragtay dadkii ay salaadii kasoo qeyb galaan iyo meydka loo duceeyo haloo taraxumo in oo dadka la ogeysiiyo dhib maleh bikhilaafi nacyi ljaahiliyati jaahiliyadii khabar geeriyaadinteedii in loo ogeysiiyo maya taas ka duwan oo baroortii iyo haloo baroorto hadii iyo ba-ayeysi darteed haddii loo ogeysiina ma la ogola wahuwa nidaau bidikri mafaakhir lmayiti wa ma'aahirihi fainahu makruh walaa yundaru lama fiiriyo min badanihi meydka jirkiisa lagama fiiri walaa yanduru lgaasilu qofka mayrayaahi ma fiiriyo min badanihi jirka meydka jirkiisa kama eego ilaa qadra alxaajati baahida inta qadarkeeda mahana taasoo min gayri lcawrati cawrada aan ahayn oo waxa weeye meydka qofka mayrayahay inta jirka u baahan yahay oo dantu markaas in uu dhaqa iyo inuu arka ay tahay bisuu ku ekaysanaa waa markii cawrada laga reebo ayada cawrada in la fiiriyo lama ogolaa kaas fain nadara zaa'idan cala alxaajati kuriha waa la kadaa ama cawradii waa xaram waman tacadara qofkii uu cudurtoomo gusluhu in la mayro qofkii maba la mayri karaba biyaa la waaye ama jirkiisa gogo-ah yumima waa loo booreeyaa waa waajib markaas waa loo booreynaya wayugasalu waa la mayraa aljunubu ruuxii janaabada qabay waa la mayraa walxaa'idu gabadhii caadada qabtana may tani hadda ayagaa mayra wey wayugasilu cibaaradana wayugasalu qoraysa nusqadan ahaysa lakin waa qalad wayugasilu ljunubu qofkii janaabada qabay wuu mayri karaa wuu mayraa walxaa'idu gabadhii caadada qabtana way mayrtaa almayita ruuxa dhintay bilaa karaahiyatin karaahiya la-aan oo qof janaabo qaba meydka waa mayri karaa karaahiyana ma aha gabadhii caadada qabta meydkii waa mayri kartaa karaahiyana ma aha oo gabar kale hadday mayrayso waidaa maataa laba ruux haddii ay dhintaan isku mar laba qofaa isku mar naftu cafwan waxaa dhintay dhe qofkii janaabada qabay ayaa dhintay ama waxaa dhimatay gabadhii caadada qabtay gusila waa la mayraa labadoodaba guslan qubays waaxidan kaliya faqad oo kaliya macnaha waxaa laga wadaa qof janaabo qaba hadduu dhinto la dhihi maayo dhimashada qubayskeedii iyo janaabada qubayskeedii labadaas la raba la dhihi maayo hal qubaysa ku filan gabar caado qabta hadday dhimatana lama oranayo caadada qubayskeedii iyo dhimashada qubayskeedii la kala rabaa ee hal qubaysa ku filan lianna algusla aladii calayhimaa inqataca bilmowt kii korkooda ahaa oo takaaliifta watay waa dhamaada kaas kii meydka bisahara walyakun ha ahaada algaasilu ruuxa meydka mayraya amiinan qof la aaminay qofka meydka mayraya qof la aamina waa inuu yahy waa kan fasirkii
fa in ra'aa ruuxii qaasilka ahaa haddii uu arka khayran wanaag hadduu meydka wanaag ku arko dakara waa sheegahu khayrkii oo haddii uu wanaag uu arko wuu sheegaa ilaa limaslaxatin maslaxa inay ku jirta maahan inuu qariyo oo qof ahlu shar ah oo ama mubtadico caqiida xun ama fidnoola qof oo faasiqa uu wanaag ku arka iyo nuur iyo khayr uu qarina haddii kala dada ku fidnooba oo dhahay hebelba hadduu saas khayrka laga arka waxa weeye maya waayahay aw amase hayrahu khayrkii waxaa ahaa inuu arka sharu ku arka xumaanu ku arka xaruma waxaa xaaraama dikruhu inuu shartii sheego ilaa limaslaxatin wanaag iyo maslaxa inay ku jirta maahan qof caqiida xuna u ahaa bidciya ama wuxuu ahaa faasiq qof xun u ahaa ahlu shara wuxuu ku arka xumaan yani mugdi iyo wax oon xunu ku arka wuu sheegaya taas inuu sheegaya maslaxa ku jirta si qofkaas wadadiisa looga digtoonaado walow tanaasaca haddii ay isqabsadaan oo doodan akhawaani laba wada dhashay isku qabsaday meydkii in oo qof kastahay asagu uu mayro aw zawjataani laba xaasa isku qabsaday inay mid kastahay waxay tiri anigaa mayraya uqrica waa loo qori ridaa kii qurcadaas usoo baxdo ayaa mayraya uqrica baynahuma faman kharajat qurcatuhu ghasalah qofkii qurcadii soo baxdaa mayra waalkaafiru qofkii gaalka ahaa ayaa axaqu mudan biqariibihi kiisa qaraabadaha alkaafiri gaalka kale ahaa qofka gaalka ah haddii uu ka dhinto qof kaloo gaalih oo qaraabo ah waa yahay uuna joogo qof kaloo muslim oo qaraabo la ah gaalka dhintay gaalka kale xaq u leh oo ka xaq leh qaraabada kaloo muslimka ah maalan laba qof oo wada dhalatay saddex qof oo wada dhalatay mid dhintay mid labada hare mid kan dhinta waa gaal labada harta midna waa muslim midna waa gaal kan gaalka kale ah oo xaq leh inuu mayro wayukrahu waxaa la kadaa alkafanu kafan ayaa la kadaa almucasfaru la rinjiyeeyey oo rinjiyada lagu buufiyo cusfoor mucasfarka iyo muzacfarki waa karaahiye dheh wa ama arajulu fayaxrumu calayhi almuzacfar duna almucasfar kan oo macnaha bahalkaas mucasfarka lagu sameyo rinjigaas waa karaahiyo laakiin ninka kan zacfaraanka lagu sameeyo waa ka xaram waalmugaalaatu ku xeel dheeraashana waa karaahiyo fiihi kafanka dhexdiisa la qaaliyeeye waalmugaalaatu qaaliyeyn fiihi karfanta la qaaliyeeyana waa xaaraam waa karaahiye dheh waa la kahdaa karaahiye wey wa ama taxsiinuhu fii bayaadihi wa nadaafatihi fa mustaxab inuu laakiin karfanta la qurxiyo xagga nadaafa iyo cadayntiisu waa sunno waalmaqsuulu karfankii la mayra ayaa awlaa ka fiican min aljadiidi kii cusba oo tan la mayraa fiican asaga dhan baaliyo uu yeelanaya wasabiyu cunugii yaraa ka baaliqin qaangaaru la mid yahay qofka qaangaarka fii takfiini karfinidiisa biathwaabin maryihii saddexda lagu kafano maryihii saddexdaa in lagu kafino uu kula mid yahay walxanuutu unsigii meyidku mustaxabun waa la suneeyaa meydka unsiga lagu shubo in lagu shubo ama catar meyd iyo unsi isku dardarka dhe unsi yani waxyaalahaas meydka lagu carfiyo catar meydka ay waa mustaxab wey waqiila waxaa leehay waajibun waa waajib waa laga xoog badan yahay daciif wey walaa yaxmilu ma qaadaan aljanaazata janaazada ma qaadaan ila rijaalu rag ma ahane wain kaana meydka haba ahaado unthaa gabar meydka la qaadaya waxaa xoog badan oo la rabaa in ay qaadaan raggi bis ilkan aan rag bisa dhigaya hadduu rabo meydku gabar ha ahaadee wayaxrum waxaa xaaraama xamluhaa janaazadii in la qaado calaa hay-atin qaab loo qaado hay-adaasoo musriyatin xaqiraysa qaab oo meydka iyo sid ku ah in loo qaado iyo wa hay-atin qaab yukhaafu laga cabsanayo minha min ajliha ayada darteed looga cabsanayo suquuduha janaazadii inay dhacdana in loo qaado ma la ogola meydkii aadba garabka iska saarataba keligiis garabaad ku qaadata meydkiisa u kala lama ogola iyo qaab inuu dhaco oo maaragtay looga baqayo liannahu tacriidun liihaanati waxaa loo banbaxay in ihaanataas lama ogola wayundab waxaa la suneeyaa uu yiri waxaa sunno ah wayundab waxaa sunno ah lilmar'ati haweeneydii maakiya u sunno ah yasturuhaa ayada asturaya ka taabuutin waaba sanduuq iyo in lagu qaado wax asturaya janaazada yacni meydka marka la qaadayo qabriga loo sii wado meydka hadduu gabar yahay wax asturaya in la geliyaa fiican saas ka taabuutin yiri waa sanduuqi
walaa yukrahu lama kahda alrukuubu koritaan fi rujuuci soo laabadkii la koro minha janaazadii laga soo laabto. macnaha meydka hadiiba kasoo qaad marka laga soo laabanayo haddii baabuur iyo hadda xilligan gaadiidka lasoo koro karaahiye maaha. si socodka lugtaa fiican marka, laakiin waa markii qabriga uu dhow yahay haddii meesha ay fog tahay taas laga hadli maayo. waayahay waxa weye markii meesha ay dhowdahay walaa ba'sa dhib male biitibaaci lmuslimi ruuxi muslimka raacidiisa dhib male janaazata qariibihi qaraabadiisii kiisa qariibkaa janaazadiisa uu raaco alkaafiri gaalka ah. qofkan muslimka ah waxaa dhintay qof qaraabo la ah ee gaal ah, marka inuu meydkiisa raaco wax dhiba male. inuu meydkiisa raaco wax dhiba male. qofkii laakiin qaraabo aan ahayn oo gaal ah waxa weye meydkiisa inaad raacdid waxba lama ogola taas. qaraabada waxaa lamid hadii oo zawjadiisi ay tahay waxa dhinta oo gaalo aheyd ama maaragtay dariskiisa u ahaa, iyana dariskana in la raaco la ogolyahay. wayukrahu waxaa la kahdaa allaqadu buuq ayaa la kahdaa, qaylo iyo hugan fi ljanaazati janaazadii dhexdeeda ayaa lagu buuq oo codka in la kor yeelo xataa walow biqira'atin qur-aan xataa in oo kor loogu qaado meeshii janaazada lama ogola, waa karaahiyo. waatibaacuhaa janaazadii in la raaco binaarin dab lala raacana waa karaahiyo. waa karaahiyo iyo wa ficlu dalika cinda alqabri makruuhun, tafaa'ul xuna ku sugan in dab lala raaco. walow ikhtalata hadday ku darsamaan muslimuuna dad muslimiin oo dhintay bikufaarin gaala hadday ku darsamaan ama shuhada iyo waxaa isku darsamay keyrkood wajaba waxaa waajiba qasluljamiici dhammaan in la mayro wasalaatu iyo tukasho ayaa banaan waajiba dheh. dadka isku darsamay maanta dadka isku darsamay waxa weeye waa muslimiin iyo gaalo meydkooda isku darsamay. haye maxaa samaynaysaa? in la wada mayra waajiba laguna wada tukado. haye oo sultaan gaal laguma tukan karo, hadda lama kala yaqaan maanta. fain shaaa haddii uu doono qaabka loogu tukana waa tan. fain shaaa haddii uu doono sallaa ruuxi waa ku tukadaa cala aljamiici dhammaan uu hal mar ku wada tukadaa biqasdi lmuslimiina muslimiinta ujeedkooduna kula tukadaho asaga ola qasdaya inuu kuwa muslimiinta salaadaas u niyeysto. wahuwa kaasana qaabkaasana afdalu fiican oo ka fiican xabad xabad. wahuwa kaasana almansuusu lasoo guriyey oo culamada laga soo guriyey. waayahay tana waa banaanta. aw calaa waaxidin aw amase sallaa wuu tukadaa calaa waaxidin mid fa waaxidin mid ugu tukadaa naawiyan xaaluyaha kii niyeysan asalaata tukasho calayhi waaxidkaas lagu tukado in kaana hadduu yahay musliman muslim haddii saa u niyeystana waa la ogol yahay. xabad xabad inta ugu tukado u niyeystaa inuu hadduu muslim yahay uu ku tukado. marka hal mar isku duuduubna waa u niyeysan kartaa biqasdi lmuslimiin. wayaquulu wuxuu yidhaahdaa meydkii ruuxii markuu u ducaynayo salaadii janaazada oo gaaladii muslimka isku jireen allaahuma kfir lahu meydkan ilaahu u dhaaf in kaana musliman muslim hadduu yahay ilahu u dhaaf u leeyahy. waaya wayushtaradu waxaa la shardiyaa lisixati salaati salaadii ansixideeda waxaa loo shardiyaa taqadumu guslihi meydka mayridiisa oo horumarta. meydkii la mayraa la rabaa waa in la mayraa. watukrahu waa la kahdaa salaadii qabla takfiinihi inta aan meydka la karfanin iyo bacda gusli. kow horta janaazada waqtigeedu wuxuu galaa marka meydka la mayro oo kasoo qaad xataa meydka salaatuljanaaza alghaa'ib lama tuka karo iyadoon la hubin xataa meydka in la mayray maxaa yeele waqtigeedu markaasu galaa. laakiin waxaa fiican in oo karfantana laga dibdhiga salaada oo karfanta la hormariyo, laakiin waa karfanta kahor waa lagu tukan karaa. falow maata haddii uu dhinto ruuxii bihadmin dumisuu ku dhintay iyo wanaxwi wixii lamida watacdara waana cudurtoomay ikhraajuhu in lasoo saaro iyo waqusluhu in la mayro iyo in loo booreeyo intaba lam yusal laguma tukado caleyhi meydka korkiisa. ruuxani maanta meeluu waxbaa ku dumay kow waxa weeye hadmi iyo wixii lamida dumid iyo wixii lamida yani ceeluba ku dhacaba aduu meeluu ku dhaco in lasoo bixiyo la mayrana waa suurtageli weyse. haye waa yahay inta lasoo bixiyo la mayrana waa suurtageli weyse ama loo booreeyo laguma tukanaa kaas
maxaa yeele salaada janaazada waxay soo gashaa markii meydka la mayro kabacdi waqtigeeda ma soo gelin. wayushtaradu waxaa la shardiyaa anlaa yataqadama inuusan hormarin ruuxii cala ljanaazati janaazadii waa inuusan ka hormarin janaazadii alxaadirati goob jooga ahayd. haddii meydka lagu tukanayo uu joogo waa inaad xagga qiblada ka xigsan ee meydku qiblada xaggeeda kaa xiga ah, liana almayita kalimaami bikhilaafi aljanaazati alghaa'iba. laakiin janaazada maqan waad ka xigsan karta xagga qiblada. walalqabri qabrigiina kama hormaro alxaadiri ee jooga cala almadhabi sida xooga badan fiihima fi lmas'alateyn oo masalada janaazada taalla iyo qabriga la joogaba. kasoo qaad maaragta adiga waa kuu suurtoobi weyday inaad meydkii la tukatid waqtigii uu banaanka yaalay, waxaa timid meydkoo la aasay, qabrigaa rabtaa inaad meydka ku dul tukatid. meydka asoo qabriga ku jira rabtaa inaad ku dul tukatid, waa inaad qabrigu qiblada xaggeeda kaa xigaa. watajuuzu waxaa banaan asalaatu tukasho caleyhi cala almeyiti meydka lagu tukado fi lmasjidi masjid lagula tukado waa banaanta, karaahiyana ma aha, taasaana fadli badanba. wayusanu waxaa la suneeyaa jaclu sufuufihim dadka safafyaalkooda in laga dhigo sunno ah. sufuuf almusaliina cala almeyit dadka meydka ku tukanaya safafyaalkooda in laga dhigo sunno ah. 3 saddex saf iyo fa akhara ka badan, 3 saf iyo ka badan ayaa maaragtay sida xadiidka loo waafaqo sunna in laga dhigo. waidaa sallaa haddii uu tukado calayhi meydka korki waidaa sulliya haddii lagu tukado caleyhi meydka korkiisa, meydka waab lagu dul tukadaba, faxadara waxaa yimid man dad lam yusalli aan tukan ayaa gadaal ka yimid, sallaa waa uu tukadaa dadkaas mankaas waa tukadaa walow bacda dafni wataqacu fardan. waaya waman sallaa qofkii tukaday oo hore u tukaday laa yuciidu ma soo celiyo calaa saxiixi sida xoog badan. janaazada qof hadduu tukaday ma soo celinayo. waa yahay maxaa yeele soo celinta salaada lasoo celinayo sunno, janaazana laguma sunaysto. walaa tuakharu janaazadii lama dibdhigo liziyaadati musaliina dadka tukanaya oo soo badanaya darteed looma dibdhigo. mar haddii meydka la diyaariyo horaa lagu tukadaa, ilaa weligii maahan, weliga waa la sugaya qofkii oo mas-uulka ahaa. bal tusallaa biman xadar waman jaaa salla cala alqabri. waaya meeshan wuxuu noo sheegaya qofkii naftiisa dilay janaazada ma lagu tukanayaa. waqaatilu nafsihi naftiisa qofkii dilay ka gayrihi gayrkiisu la mid yahay fi lgusli mayridi iyo wasalaati tukashadaba lagu tukanayo. qofkan hadduusa dilka xalaalaysan, hadduu xalaalaysto wuu ku gaaloobaa, laakiin qof shaydan ka qaalib noqdo hadduunu ahaa marki waa lagu tukanayaa waana la mayraya. walow nawal imaamu imaamka haddii uu niyeysto waa la mayraya waana lagu tukanaya kaasire. walow nawal imaamu imaamka haddii uu niyeysto salaata ghaa'ibin qof maqan salaadiisa, mathalan ba halkan janaaza taalla waa lagu tukanaya, laakiin imaamku wuxuu u niyeystay janaazadiisa meyd maqan, dadkii kalena qofka meydkan halkan yaala ma isku xero karaan, taas ka hadlaya. walow nawal imaamu imaamku haddii uu niyeysto salaata ghaa'ibin qof maqan salaadiisa, walxaal alma'muumkiina dheh uu niyeysta salaata xaadirin qof meydka jooga salaadiisa. imaamkii meydki maqanu u niyeysta, kana meydkan jooga. aw cakasa waa uu dabagediyo, yacni imaamku janaazadanu u niyeystay, dadka ka dambeeya qayb ka midana waxay u niyeysteen meyd maqan. jaaza waa banaan tahay, arrintaas waa banaanta, waa ansaxaysaa, waana isku xiro karaan. wadafnu aaskay fi lmaqbarati qabuur lagu dhex aasa afdalu fiican. meydka in keligiis meel alla lagu aaso ama guri lagu aaso waxaa ka fiican in qabuur lagula aaso. guri in lagu aaso waaba karaahiye wey ila shahiid uu leeyahy, oo shahiidka meesha lagu dila lagu aasaa. wayukrahu waxaa la kahdaa almabitu baryid bihaa qabuurtii la baryo waa karaahiyo ida kaana munfaridan, ama ida kaana fi jamci liqira'ati qur'aani mathalan falaa yukrah. wayundab waxaa la suneeyaa satru lqabri qabriga in la asturo cinda idkhaali lmayiti fiih, marka meydka la gelinayo qabriga in la asturo sunna ah. bithawbin mara lagu asturo sunna ah, marka korka wax looga qabto waa sameeyaan dadku. wain kaana meydka haba ahaado rajulan nin haba ahaadee waa sunno, gabadhaana sii adag. wa an yaquula inuu yidhaahdo ruuxii qabriga dhigayay mudkhilka aha, ruuxa qabriga dhigaya inuu yidhaahdaa sunna ah bismi illaahi wacalaa milati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama. bismi illaahi ilaahay magaciisaan iilka kugu dhigaya, ulxiduka aan iilka kugu dhigaya. wacalaa milati rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa diintiisa korkeeda xaal aan ku sugannahay annaga iyo adiguba sala allahu calayhi wasalam.
saasuu yidhahdaa walaa yufrashu lama goglo taxtahu meydka hoostiisa shay-un waxba laguma goglo ha kibir iyo waxaas tusina meeshaana baahi ilaahay uu u baahan yahy bisa taala walaa mikhadatun barkinna laguma goglo oo barkin looma dhiga ninkan hantiilu ahaa jira iyo madaxu ahaa jira ma jirto kulli daankaa ciidda la isu gelinaya wayugra waxaa la kadaa dafnu meydka in la aaso fii taabuutin santuuq in lagu aaso waa karahiyo meydka inka santuuq lagu aaso karahiyo wey ilaa fii ardin dhul maahane nadyatin qoyan dhulku inuu qoyan yaha ma ahane aw rikhwatin ama jilicsan oo dhul jilicsan oo laga baqa inuu kusoo dumo markaas dhulka hadduu qoyan yaha ama uu jilicsan yaho laga baqa inuu soo dumo karaahiya ma ahan waayaha haddii dhul dugaag laho wax kale aysa ka ilaali kareen santuuqa ma ahanina ayana waa lamid wayajuusu waxaa banaan addafnu aas leylan habeenkii la aaso waa banaan tahay wax diidaa ma jirto wawaqta karaahati salaati salaada karaahiya nimadkeeda waqtigeediina in la aasa waa banaan tahay maa lam yataxara ruux hadduusa ku dadaalin waqtigaas waqtiyadii salaada la kaha jiro ee shanta ahaana meydka waa la aasi karaa waa hadduusa ruuxu kula dadaalin hadduu kula dadaalo waa karaahiyo wagayruhumaa laakiin habeenkii iyo waqtulkaraahiyadii keyrkood afdalu fiican waqtiyada kalaa fiican wayukra waxaa la kadaa tajsiisu lqabri qabrigii in la nuuradeeyo ayaa karaahiya waa laga fiican yahy walbinaau dhisna waa karaahiyo qabuurtii in la dhisana karaahiya wey waa laga fiican yahay markaa saas laleeyahay waa qabuurtii oo aan waqafka ahayn ama qabuurta waqafka ah taas lama ogolo waa xaaraam maxaa isbaysi qaadana taas dhiskaan qaybu qaadana walkitaabatu qoraal ayaa karaahiyaha oo laga fiican yahay calayhi waxa weeye qabriga korkiisa lagu dul qoro walow lismi saaxibihi wayukrahu taqbilu taabuuti walactaab wa an yujcala cala alqabri madalla na waa karaahiya dalladii in lagu sameeyo waayaha waa ka tagna wuxuu yihi walow buniya haddii la dhiso fii maqbaratin qubuur musabalatin la waqfay hudima waa la dumiyaa lamaba ogolaba taas wayaxrumu lbinaau fiiha maxaa yeelay dhulka waxaa loogu talagala qof kasta inta la dhiga kaliya in la dhigo dhismuhuna dhul dheeraadu qaadana lama ogola markaas waaya wayundab laakiin taas dadku ma fiirin iska indha tiraan wayundab waxaa la suneeyaa an yurasha alqabru qabriga in la rusheeyo bimaa in biyo lagu rusheeyo waa suno ama maaulwardigu waa karaahiyo laakiin biyo in lagu rusheeyo waa suno tafaaul fiicna ku jira wayudaca in la dejiyana oo la dhigana waa suno caleyhi qabriga korkiisa xasaa qaruurax lagu daadiyo qaruux wuxuu sameynaya ciidiu ilaalinaya ciiddi san dabaysh u bitin ayuu ilaalinaya wacinda qabrihi meydka qabrigiisa wacinda ra'sihi meydka madaxiisa agtiisa in la dhigana waa suno xajarun dhagax aw khashabatun qori in la dhigo si loo garta meesha madaxu jiro sun wa jamcu laqaaribi qaraabadii oo la kulmiyana waa suno fii mawdicin meel oo qubuurta kamid a oo isku dhadhow in la dhigana waa suno wayanbagii ilxaaqu الزawjayni wاlcutaqaa'i wاlasdiqaa'i bilaqaarib wayundab waxaa la suneeyaa ziyaaratu lqubuuri qubuurtii in lasoo booqdo asuna lirijaali ragga ayaa loo suneeyaa watukrahu ziyaaradaas waa la kahdaa linisaai dumarka ayaa loo kahdaa waqiila waxaa leeha taxrumu waaba ka xaaraam dumarkii waqiila waxaa leeha tubaaxu waa banaan tahay waa loo baneeya wajazama bihi bilibaaxati fi lixyaai ghazali ixyuhu ku jazmiyey ومحل تلك الأقوال في غير زيارة قبور الأنبياء وأهل الصلاح وإلا فزيارتهم سنة للنساء أيضا وحير ويكره ويسلم وسلام سلام الزائر قفك صوب بغضي قبورت قفك صوب بغضي قبورت أي سلامة ويقرأ وانا أقريا وقرآن أذكاري وحفظك أقريا ويدعو وانا أدعيا ميتكي قرادة كبعدي أدعيا qiblada ayuuna qaabilaa markaasuu duceynayo wayaxrum waxaa xaaraama naqlu lmayiti meydka in la raro ayaa xaaraama ilaa baladin magaalo loo raro aakhara kale meeshan waxaa moodaa in aad la iskaga ignoor garaynayo dadkii hadda maanta xataa aad loo dhibayo dadkii qurbaha intaasoo qarasha la gelinayo meydkii oo hala qaadaa laleeyahay xataa hadduu dardaarmo in la raro ma banaano meydka oo meesha uu ku dhinta laga qaado
waayahay ilaa beledin aakhara wadan kale loo raro. waqiila waxaa leehi yukrahu waxaa la kahdaa ilaa an yakuuna meydki inuu yahay maahane biqurbi makata maka meel u dhow inuu yahay ma ahane aw ilmadiinati madiina meel u dhow yahay ma ahane aw baytlmaqdasi baytulmaqdes meel u dhow ma ahane. nasa waa uu cadeeyey imaamu shaafici caleyhi naqligaas ayuu cadeeyey oo waxa weeye qiilkan wuxuu leeyahay xaaraam ma ahane waa karaahiyo. naqlulmeyit xaaraam ah waa karaahiyu leeyahay haddii aysan maka iyo madiine iyo baytulmaqdes meel u dhow aysa ahayn. haddii ay kuwaas tahay waxa weeye ma jirtuu leeyahy xurmo iyo karaahiya u leh. waayo wuxuu yiri wayaxrumu waxaa xaaraama nabshuhu meydki in lasoo faago oo lasoo qodo bacda dafnihi meydka marka la aasa kabacdi in lasoo bixiyo xaaraama. linaqli rarid oo meel kale loo qaado in loo soo bixiyo in meydka meel kale loo qaado xaaraama. iyo wagayrihi raridii keyrkeed in loo soo bixiyana waa xaaraam. wanabshuhu meydkii lasoo bixiyo dhe bacda dafni markii la aasa kabacdi lasoo bixiyo linaqli raritaan loo soo bixiyo iyo wagayrihi raritaan waxaa ahayn in loo soo bixiyo. labadaasba oo waxaa ahayn waa salaadii karfantii oo kale. xaraamun xaaraam weeye ilaa lidaruuratin daruura inay keento ma ahan. oo maxaa ka mid daruuradii wadalika bian dufina waaba in la aaso meydkii bilaa guslin mayrad laan. meydki haddaan la mayrin waa lasoo bixinaya. aw fi ardin dhul in lagu aasa maahane aw thawbin maro in lagu aaso maqsuubeyni la boobay dhul islaameedu ku aasan yahy waa laga bixina. maro islaameedoo la dhacaa lagu aaso waa laga soo bixina. waa waajib in lasoo fago. oo amase waqaca waxaa ku dhacay fiihi meydka dhexdiisa fiihi fi lqabri qabriga waxaa ku dhacay maalun hanti qofkii lahaana hala iisoo bixiyu yiri waa lasoo bixinaya waa la faagaya. aw dufina waa la aasa meydkii ligayri lqiblati qiblada meel ahayna lagu aasa qibladiyaa laga jeediyaba waa lasoo bixinaya saa la toosinaya. laa litakfiini karfanayn maya oo meydka karfan haddii karfantii laga halmaamo ama waaba la waay markii hore kabacda la hele lama soo bixinaya ardada karfan noqotay fil asax sida xoog badan. falaa yumbashu liajlihi low dufina min gayri kafan fil asax. wakada low laxiqahu saylun aw nadaawatun yumbashu liyunqal. roobaa yimid ama qoyaan waxaas waa la rari karaa markaas. waama bacda bilaa'i jasadi lmayiti falaa yaxrumu nabshuhu bal taxrumu cimaaratu qabrihi in kaana fi maqbaratin musabalatin ida kaana min ila ida kaana min ahli lkhayr aladiina yutawaraku bihim fatastamiru xurmatu nabshihim. waayo wuxuu yiri wayusanu waxaa la suneeyaa an yaqifa inuu istaago jamaacatun jamaaca inay istaagto bacda dafnihi meydka markii la aasa kabacdi cinda qabrihi qabriga meydka agtiisa inay jamaaca istaagtaa sunno ah. wayusanu waxaa la suneeya an yaqifa inay istaagaan jamaacatun jamaaco bacda dafnihi meydka markii la aasa kabacdi cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa saacatan waqti yani qadra saacatin saacad intii la waqti inay istaagaana sunno ah. yas'aluuna xaalayihin kuwa weydiinaya lahu meydkii atathbiita sugid in ilaahay kelimada xaqa uu ku sugo. waysanu talqiinu lmayit lmukalaf. waayahay wayusanu waxaa la suneeyaa lijiiraani ahlihi meydka ehelkiisa darisyaalkiisa waa qaraabadii fogeed iyo tahyi'atu dacaamin cunto inay diyaariyaan ayaa sunno ah. dacaamkaasoo yushbicuhum ahlulmeydki dharjinaya. yowmahum maalinkooda dharjinaya iyo waleylatahum habeenkooda oo dadka meydku ka dhintay ayagu inay cunto dadka u diyaariyaan ma ahan ayaga in loo diyaariyaa la rabaa. wayulaxu waa lagu celceliya calayhim korkooda fi lakli cunida si fican lagu celiya waa sunno inay cuntada cunaan lagu celceliya. wayaxrumu waxaa xaaraama tahyi'atuhu dacaamkii in la diyaariyo linnaa'ixaati kuwii baroor diiqayay iyo wanaadibaati waa xaaraam. wallahu aclam. oo kuwaas in cunto oo ayagu loo diyaariyo kuwa shaydaanada lama ogola. waama islaaxu ahli lmeyiti طacaaman in dadka meydku ka dhinta cunto ay diyaariyaan wa jamcu nnaasi caleyhi dadkana iskugu yimaadaan fa bidcatun tucaddu min anniyaaxa waa bidco oo ay laga tirinayo qayladii baroortaah xaaraantaheed oo kale. marka ma fiicna lama ogola beydka dadka iyaga ka dhinteen laga dhintay inay qarash sii galaan qaraabada kale alra iyo dadka kale dariska inay diyaariyaan
wallahu aclam wa axkam.